بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin wada salaamayaa saaxiibadayda sharafta badnaa ee wada quruxda badnaa iyo soo wada dhawaada walaalaha hadda cusub ee yimi idinkana soo dhawaada baan idin leeyahay gacmo furan qalbi furan waliba waji furan ku soo dhawaada biidmillaahi raxmaan walaalihii hore ila joogay ee qiimaha iyo sharafta badnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin allah idin wada barakeeyo insha Allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago wax yar oo maaragtay kimis ama chapati qofba siduu yaqaano hadda ka hor baan clip aad u yar oo maaragtay sakana soconayaan soo galiyay laba gabdhood oo walaalaha waxay ka codsadeen chapatiga soo gabadh waxay u taxagaan ka helinaa video-ga dhameystiran inana waxay u tii walaalo noo soo samee marka sidaad waxoogaa gabadhii hore waa waqti hore bay haye walaal baan dhahay waan ballan qaaday inan kale walaala haddana adiga 2 isbuuc ka hor meelahaas haddana sidoo kale ii weydiisay xagee xabiibti ka helinaa bay ugu tiri video-ga dhameystiran marka insha Allah waxaan isku dayay inaan in yar sameeyo chapati ah haddii la yiraahdo sidan ayayna insha Allah u dhici doontaa haddii la raali ka noqdo sawirkana arkaysaan chapati markaan sameeyay ama kimistiiba waxaan sameeyay caanaha yogurtka oo maaragtay plain yogurtka caanaha garoorka ah baan kuwaasan ku cunaynay alxamdulillah sababta kimista waxa fiican maadaama saliid lagu sameynayo in ama wax maaragtay digir iyo khudaar iyo wax lagu cuno ama in lagu cuno maaragtay caano oo aan suugo kale lagu cunin ba fiican badanaaba marka waxaan sameeyay ani caawo kale marka cashaan ka dhigay waxaan ka sameeyay maaragtay waxaan ku sameeyay yogurt waxaana fiican maadaama ay bur tahay oo burku uusan saa u fiicnayn bishii hal mar hadii la sameysto waa iska fiican tahay oo waliba wax aan saliid lahayn lagu cuno ee wax maaragtay sida khudaarta greenka oo kale ama digirta iyo waxa la isku dardaro ama caanaha yogurtka saasan ku jecelahay dad baa xitaa jira shaah ku darsado wadankeena shaah baa lagu darsan jiray marka yaani waxa ugama jeedo wax kale oo dhiba laakiin waxa saaday maadaama wax kan bur tahay oo iyadiba sonkor iyo maaragtay waxaan fiicneen ka yaani badan oo tahay in maaragtay laga sameeyo wax yaani caloosha marka la cuno wax ku yeelino dufan iyo saliid iyo waxyaalo kale ah in lagu sameeyo lagu cuno ba fiican baan isleeyahay sida daraadeed baan saas u dhahayaa marka chapatiga qaarba kale qofba sibu u yaqaanaa hadda aad iyo aad waxaan kaga raalgelin leerka iyo shidan ba cadaaniga dhigay ma garan karo mar walba waxaan dhahay iska jooji insha Allah waan ku dadaalayaa inaan iska joojiyo mar dambe aan soo qaadanin hadii la raali ka noqdo marka walaalihii sharafta badnaa iga sugayay waxaan rajeynayaa inay idin anfici doonto laga yaabee ina maaragtay aad waxaan isku day in la fahmo saan u sameynayay marka insha Allah biidmillaahi raxmaan waa la fahmi doonaa kimistana waxa ku garanaysaa inay ku fiican tahay inay saa u kala jiidanto inay galal badan yeelato galal badan oo kala baxbaxaya iyo inay burburto kimista marka la dubayo bahalka aad maqliga ama daawaha waxa ku sameynaysid inay ku burburtaa lagu gartaa marka insha Allah biidmillaahi raxmaan saan u bilaabay ayaan idin la wadaagayaa waxaan soo qaatay 3 koob oo burka cad ah waana koobkaas hadda gacanta ku hayay oo 3 koob ah baan soo qaatay waxaan kala soo qaatay adiga 3 malqacadood oo tablespoon ka cunto baasha malqacada cuntada lagu cuno 3deed oo sonkorta cas ah baan soo qaatay waxaan soo qaatay cusbada Himalaya salt oo burburan marka biyaan ku qasaya hadii ay la shiido way fiican tahay laakiin waxay leedahay problemkeedu waxa weeyaan waxay ku jirjira dhagaxan yar yar waxa dhagax moodid marka aniga biyaan ku qasaa cusbada way ii qasantaa wixii dhagaxa ahana ciid isagoo ah buu koobka ku haraa waxaan soo qaatay xoogaa biyo ah oo warm ah oo qandac ma aha biyo oo kulul maaha qandacan faraha gelin karo saliidana aan soo qaatay adana waa vegetable oil ka weeyaan waxaan sameynayaa kimista markaan xasho si aan farahayga ugu dhigdhigin baan wax yar ku daraya waana saliida aan kimista oo dhan ku sameynayo waliba in baa iga soo hadhi doonta hadhow markaan sameeyo marka waxaan ku shubay sonkortii
burka waxa weeyaan waa burka cad weeyaan dad baa jira dadka aad healthiga waxay sameeyaan burka cas ama burka madow waxa kasta ay dhahaanba bay ku samaystaan laakiin aniga weli ilaahay amarkiisa burkaas ma jeclaan inaan ku sameeyo laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa inaan barto sida loogu sameeyo chapatiga marka burka cad baan hadda isticmaalaya usually burka cad baan isticmaalaa marka yani cusbadii biyihii aan ku qasay sonkortii burkii intii oo dhan baan isku shubay biyahana wax yar baan qandac ka dhigay yani wax yar baan waxaan ka dhigay qandac ka dhigay fardiiris baan ka dhigay dabka caadiga digsi baan ku kululeystay biyaha tuubada kulul ma fiicna in la isticmaalo cuntada bas kimisti waan soo xashay waxa marka Soomaaliya waxay kimisteedu lahaan jirtay in badan baa la xashi jiray laakiin daqiiqaha kale way ka duwan daqiiqihii Soomaaliya hadaad isku geeysaa dareentid inaad isku wada dartid wax badan ka marabto markii aan xashay saliid yar waxaan ugu shubanayaa waxaan isleeyahay si faraha uga hadho wax yar baan ku daray laba saliid yar baan ku daray waan ku xashayaa si ayna farahayga ugu dhigdhiginin oo maarta faraha marka saliid ku chapatiga uu suka raacaya marka alxamdulillah waxaadna ku garanaysaa markii uu kala jiidmaya kamana badna wax 5 minutes ka yar baan xashay hadii laakiin aad haysatid mashiinka kimista lagu xasho waa ku xashan kartaa hadana kaasoo kale oo kimista lagu xashi jiray laakiin mashiinka waa iga jabay marka gacantayda ayaan iskaga xashtaa calaa kulli xaal kimista waxaan sameeyay markaan soo xashay dad baa sameeyay inay dhigaan xogaad ilaa 10 minutes meelaha laakiin anigu horaan ka bilaabay waliga ilaa yaraanteedina kimista wadankii hooyo markaan joogay horaan ka bilaabi jiray waan soo xashtay isla markiiba waan jarjaray marka aad jarjaraysidna ku dadaal inaad isleekaysiisid ka kala burburnaan hadii kala dhaw ka kala buuranaysa burkii aan kullu waxaya ma ku fidinayay dhinacaasan ku soo shubtay si aan weel badan isaga uskagaynin baasha wax ka burka wax ka daadasho badan marka waxaan ku soo shubtay burkii dhinacaygaan dhigtay saliidi wataas oo iska sideedii wali kimista waan ku la waxaya hadii Ilaahay raali ka noqdo sababtan ugu la waxayana waa intusaya yani chapatiga markaan fidiyo ayaan dhexda uga darayaa xabada chapatiga yani waxaan rajeynayaa codka iyo sawirka inuu iskeeno mararka qaar waxaan arkaa codka iyo sawirka oo isdhaafay hada chapatiga markaan fidiyay oo aan kala bixiyay saliid yar malqacad caaradeeda ma aha saliid caadi ah malqacad iyo foorta oo aan gacgociyay ayaan saagu kor wareejiyaa ka bacdi waxaan sameynayaa kimista labada koonaan ka soo laabaya labada koon markaan ka soo laabo isla sawirkaan ku tusi doona hadii la yiraahdo khafiifna laga dhigo say kuugu kacdo ama kuugu fiicnaato kimista yar yar ee marka jarjaraysa khafiif yar yar ka dhig hadhow si fiican bay kuugu shaqeynaysaa kimis jilicsan ku noqonaysaa laakiin hadii iyadoo waa weyn aad jarjartid way ka xumaanaysaa marka labada dhinac baan iskaga soo laabaya sidaas hadda ay hob inuu maarta sawirka iyo codkaygu iskeeno labada dhinac baan iskaga soo laabaya handeen hadowtana caadi baan sugu soo laabaya si maarta afrigees u noqoto tana sameeyna waa afrigees waana kimista Soomaaliga weeyaan kimis waxa jirta Kenya lagu sameeyo oo ayadana Kenya ma sha Allah ku soo bartay sanad ban Kenya ma sha Allah soo joogay sanadkan ku soo bartay taasna mar baan tijaabinayaa iskeedana inaan sameeyo hadii Ilaahay raali ka noqdo marka waa tan asaas noqotay waa la isku dhamaystiraa si aan u kala dheeraanin si aan maaragtay dhinac hadhowta kaaga buuranin si kasta waa la isu leekaysiiyaa yani waxa loo sameeyaa qiyaas isleeg inta markaan sameeyay ma sha Allah wax yar oo bur ah baan hadana ku fidinayaa dad baa saliid ku fidiya laakiin saliidii adduunkii bashaq isla soo noqonaya kimistiina saliidii way ku badanaysaa marka waxaan sameynayaa aniga burka yar dhinaca ii yaala ayaan ku fidinayaa miiskaas cuntada ayaan ku sameeyaa oo kijada dad baa wax kor saara waxaas maanta oo ka ururday laakiin taasaan ku sameeyaa haye waxaan soo gaaray inaan dubo marka xabadii inay diyaar ahayd wadaarkaysan saxankii waan soo qaatay aluminiumka waxaan sameynayaa oo ku soo daboolayaa si aysan hadhowto iga leersan oo iga qalalinin baan ku daboolayaa maqliga baan soo diyaarsaday ma sha Allah maqligan xoogaa
waxaa moodaa kimista basan ku sameeyaa ilaahay amarkiisa wuu ballaaran yahay hadda markaan sameynaya xansareeyaan mid kale ku samee haddana xansari kana kimista u daaya hadda ka hor laakiin wax baan diidayaa waxaasan hadda arkay sawirka ka dhex arkay laakiin maarata waska caadi way dhacdaa halkii maamiliyuni marka kimista waan sidan baan ku wadayaa gabadh kasta waa iska fahmaysaa waana xabadii ugu dambeysay inay tahay baan malinayaa sawirkaasi soo daba maray gabadh walba way fahmaysaa qorshaha iyo nidaamka iyo wax walba anigu isma dhaho gabadh Soomaaliyeed xaqiiqatan mararka qaar gabdho aad iyo aad waxaanu nahay u ismaada u karti badan u maaragtay cajiiba marka insha Allah tusaalaba hadda intan iga tahay waxaan mi xabadii ugu dambeysay taasina tahay sawirkaasi iyo yara daba marilaana dhowr xabo baarabeena idin la wadaago marka saliid yar baan saa labada dhinac uga wareejinayaa marka dareentida maqaligu inuu ka uskagay oo burburkiyo saliidi kaaga uskagtay isla markiiba tissue baa lagu tirtiraa ama mara yaro baatiya u diyaarsatay ama wuxuu yaro nadiif ah lagu tirtiraa kimistana waxa lagu gartaa inay maaragtay aad u fiican tahay kimista wayna burburto hadda xabadaas wax yar bay iga yara guduudatay kimista waxa lagu gartaa inay burburto hadda sidan kimista korkeeda inay burburto baa lagu gartaa haday kimistu burburi weydo taa macnaheedu waxa weeye kimis jilicsan oo si fiican maaha marnabana kimisti wadankeena oo kale ma noqonayso wadankeena ilaahay baa barakeeyay wadan kasta ilaahay baa barakeeyay oo ka maaratay ka dacwoonmayno laakiin waxa weeyaan wadankeena ilaahay amarkiisa wixii sugooni buu ahaa yani wixii ilaahay baa barakeeyay si qurux badan buu ahaan jiray marka kimista waxa kale lagu gartaa gacantaada markaad ku qabatid waa inay xushuq isku dhaxdo isku dunto iyadoo dhan oo gacantaadii aad yani ugu tuujin karaysa isku dumi karto laakiin haday baldaq noqoto taas ha ku dayso kimis maaha waxa kale oo jirta kimista xabad kamida kuwanaad ku arki doontaan markay yeelato soo kiciso buuf dhahdo anigu waxaan sameeyaa waan dalooliyaa hadii kale waxa dhacaysa wax aan sawirka idinka tusi doono oo in ay yeelanayso dhinacyadu ceeri noqonayaan laakiin hadaad maartay buufinka markay noqoto aad daloolisid way degaysaa markay degtana waxa imaanaysa inay ku wada bislaato marka aad baan ugu xumay nalka kan uu iga xumeeyay cadaan xun buu iga dhigay cadaankaasna kama helin laakiin waxba ma lahan insha Allah waa iska hagaagi doontaa marka sawirka wax kasta macna kasta wuu intusaa koonaha waxaan gacanta saama qacdo ugu siinay xasleeyay hadhow koonaha dhinacyada ceerin ka noqonin mar baa jirta haduusan videogaas aanan ka taginin kimisti oo buuf samaysa bul noqonaysa baad arkaysaan iyo sida aan uga soo horjeedo inay noqoto laana markay kacdo kimistu watan masha Allah watana weeyaan markay kimistu kacdo hadhow ceerin bay dhinacyada ka noqonaysaa laakiin markay si islaag u bislaato macnaheedu waxa weeyaan afarta koono caadi bay ka noqonaysaa marka waa taasa si fiican baa warkasan xabada ugu dambeysaan dubayo waan dalooliyaa kimista maartan dhinacyada cadaan bay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa inaan hadhowtan afarta dhinac u saaro afarta dhinac ka bislaayo ma u jeedaan waa kaasa waxaan rajeynayaa inay maartay codkii sawirku isla hadanaad baan uga walwalaa arano aabkan isticmaalaya baa khaldan baan u maleynayaa aniga sawirku way tusaya hadhowto codkii sawirku way isdiidayaan marka walaalahayga sharafta badnaa iga soo codsaday waxaan rajeynayaa inay idin anfici doonto hadii aad istirahdaan sida ma idin fahmin ama sidii aad rabteen uma soo sharixin waa ii soo sheegi kartaan khayr badan Allah idin siiyo ha iga xishoonina channelka hadaa ka heshaan insha Allah horta marka hore soo dhawaada insha Allah subscribe dhaha hadii aad fiidiyodan ka heshaana insha Allah like dheh hadii aan u dareemo dhibaatana mala culaysna